oo runtii casiis loo oran jiray bin Umayr oo saxaabi wado asir waa ninkaas xarkaha ku adkay buu yiri hooyadii waa gabadh aad u kharash badan lacag badan baa laga siin doonaa yaanu ka baxsan buu ilaa dad kharash u baahantay markaas casiis baa ku leeyahay hatta anta Mus'ab waxaan islaaninkii awlaalaha ahaydeen waxa weeyday ma garatay kala hadli doonaa nimanka muslimiinta ah war kharash baa ku soo saarteen disheen hantidoodii ka qaadeen dibadda u tuurteen buu marka waa loo baahan yahay hantidoodii oo adiga hooyada ay hayso in bar la soo diro waa loo baahan yahay buu waxa runtii xusud mudan rasuulku kaleey salaatu wasalaam nimankii quraysheed yani oo 70 yani hebel waxa la yiraahdaa qabiilo quraysh kamida oo aan ninkii hogaaminayay aan laga dilin way yaray 70 baa la qabtay 70 waa la dilay macnaheedu waxa way qurayshdee dad badan bay ahayn laakiin hogaankii oo dhan ayaa halka ku leeday marka rasuulku kaleey salaatu wasalaam 24 kamida ayaa meel godo oo weyn ayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam uu meydkoodii ku ururiyay markaas rasuulku kaleey salaatu wasalaam uu la hadlay يا فلان بن فلان يعني هو أبو الجهل نقول بمقعيسي يا فلان بن فلان يعني أيسركم أنكم أدعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد